السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن waxaan idin leeyahay subax wanaagsan. Ramadaan Kariim maanta ay taariikhda ku beegantahay 23 Abriil oo Jimco ah ayaan waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamij aad iyo aad u xasaasi oo ku saabsan kubadda cagta. maxaa ka ogtaa ciyaartoyda soo maray militarinimada kadibna ka soo baxsaday kuma biiray kubadda cagta? waxaa ciyaartoydaas hogaaminaya Himinson, Maxamed Sallah, Mutakaskar, Beniyun iyo dad aad iyo aad u fara badan. Maxamed Sallah iyo ciyaartoyda caanka ee militarinimada soo maray ma ogtahay in qaar ka mid ah لاعبinta ka dhigay horyaalka Ingiriiska ee Premier League ay militarinimo soo mareen kadib siyaabooyin kala duwan uga soo baxsadeen. dowladda UK iyo dowladaha kale ayaa waxay qasab ah in ay markii dhalinyarada ay gaaraan 18 sano jir ay soo maraan tababar military oo ah 1 ilaa 2 sano ah. sidaa darteed ciyaartoyda ka soo jeeda wadamadaas ay qasab tahay in ay soo maraan tababarkaas. hase yeeshee qaar ka mid ah ciyaaryahanada ayaa helay wado ay kaga soo baxsadaan tababarka militarinimo. waxaan eegaynaa 5 ciyaartoy oo ka dhigay horyaalka Ingiriiska Premier League oo ka soo baxsaday tababarka militarinimo. Maxamed Sallah oo Masar ka soo jeedo. Maxamed Sallah oo door weyn ka ciyaaray isbeddelka naadiga Liverpool tan iyo markii uu ku soo biiray 22 bishii June 2017. Sallah ayaa wacdar dhigay xilciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Premier League. waxa uu shabaqa ku hubsaday 32 gool taasi oo ku guuleystay kabta dahabka ee Premier League ciyaareedkaas. balse sanadkii 2014 ayaa waxa soo afbaxay warar sheegaya in Sallah uu ka soo baxsaday tababarka militarinimo dibna loogu celin doono. balse waxa soo dhaxgalay ra'iisul wasaaraha Masar arrintaasna waa la xaliyay. ninka jooga dheer ee xulka Jarmal oo ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Arsenal Baxsadeyn ayaa soo maray militarinimo. waa ciyaaryahan horey ugu tarsanaa naadiga Arsenal oo aad u dheer waxa uu ka soo baxsaday militariga. Baxsadeyn ayaa maamulka u qoray warqad uu sheegay inuu aad u dheeryahay oo ku habboonay militariga kadibna way ka aqbaleen saas ayuu uga soo baxsaday militariga. Lamada Felix xidigii hore ee Serbia iyo kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ka soo baxsaday militariga. daaficii hore Manchester United ayaa magaaladiisa ka soo tagay isaga oo 15 sano jir ah si uu ugu biiro kooxda Real Star. markii dambana waxa uu waraaq cadeynaysa in uu yahay ciyaaryahan u geeyay militariga taasi ayaana u sahashay inuu iskaga baxsado militariga. Yusuf Beniyun ciyaaryahanka Yuhuudka ee ka soo jeeda Arsenal Israa'iil ee u dheeli jiray Arsenal Chelsea ayaa ka soo baxsaday asna. xidigii hore Liverpool Chelsea ee Arsenal Liverpool Yusuf Beniyun 8 jir markuu ahaa ku biiray militariga kadibna ka soo baxsaday balse waxa uu suurgashay in uu sii wato kubadda cagta. waxa uu markii dambe kooxda West Ham Liverpool Chelsea Arsenal iyo TBR u ciyaaray. xidiga xulka South Korea ee kubadda cagta Sports Himinson dhammaan ragga da'dooda ka sareysa 20 sano jirka Korea Koonfurta ayaa loogu baahan yahay in ay ugu yaraan 2 sano ay ka shaqeeyaan militariga. weeryaanka u dheelay naadiga Tottenham ayaa si dirqi ah ugu badbaaday in uu ku biiro militariga kadib markii ay Kooriyada Koonfureed ku guuleysatay koobka Aasiya. waxaa la daa koobka Aasiya noo qaaday militari maraysi marka koobka Aasiya u qaaday uu ka baxsaday. ciyaartoyda ku guuleysatay ciyaaraha Aasiya ayaa laga saaray militariga dadkaasi sidaasi ayayna kaga badbaadeen in si muhiim oo ka mid noqdo militariga South Korea. waxaynu halkaas ku soo gabagabeynay barnaamijkeena xasaasiga ah oo ahaa ciyaartoyda caanka ah ee militariga soo maray. waxaan ugu horeyn Maxamed Sallah. So the bar is where I go. Me and my friends at the table, so you just drink it fast and let me talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hands up, put them on the jukebox, and then we start to dance. And I'm saying like, do you know?
waxaan halkaas kasoo gabagabeynay barnaamijkii ahaa ciyaartooyda caanka ee kasoo baxsaday militarayga ay ka dheeli horyaalka Premier League. haddaad horey noola joogtay like noo saar noona share garee. haddaad nagu cusub tahay close to me soo dhawow oo calaamada guduudka caddaan nooga dhig, like noo saar noona share garee, subscribe noo saar. hada billahi wa tawfiiq. intaas ayaynu ku ekeynaa barnaamijkeen xiisaha lahaa ee ciyaartooyda kasoo baxsaday militarayga ee ka dheeli horyaalka Premier League. waa anigoo ah walaal boos, waxaan idin leeyahay nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti dambe oo xiiso leh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن وحان إذن لي صباح وناكسن رمضان كريم. أنت تاريخ ذا كوبيغ أنت سدحي لغاتنك إبل أو جمعة أيام وحان إذن سوق بندونا برنامج آدي.